kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News oo ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn waxa qaybka maamulka gobolka Banaadir oo war culus ka soo saaray dhaqdhaqaaqyo ay mucaaradka ka wadaan magaalada Muqdisho iyo banaanbax loo ballansan yahay maalinta Khamiista beesha caalamka oo dalab culus soo saartay kadib shirka golaha wada tashiga qaranka dhinacyada siyaasadda Soomaaliya baaq degdeg u dirtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo safiirada dalalka Norway iyo Imaaraadka kula kulmay Muqdisho qodobo xasaasiyana kala hadlay iyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka mid noqday golaha wasiirada dalka Tanzania qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahineynaa tabinteena habeen ee u diyaar garooba daawadayaal markale kulan wanaagsan waa 11 bisha January 2022 ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo aynu guda galno hadii aynu ku bilowno maamulka gobolka Banaadir ayaa war culus ka soo saaray dhaqdhaqaaqyo mucaaradka ay ka wadaan Muqdisho iyo banaanbax loo ballansan yahay maalinta Khamiista gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maanta shir gudoomiye kulan aan caadi ahayn oo goobjoog ay ka hayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha amniga ee qaybaha guud ee gobolka Banaadir gudoomiye Cumar Finish ayaa si adag uga hor yimid banaanbax ay abaabulayaan mucaaradka kaas oo qorshe u yahay in magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo maalinta Khamiista ay soo socoto waxa uu sheegay in xilligan magaalada Muqdisho aysan xamili karin culeysyo hor leh isagoona banaanbaxayaasha dadka abaabulaya oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa fowdo iyo sidoo kale qas ka wada caasimadda amnigeedana lidka sidoo kale waxa uu faray saraakiisha amniga inay xoojiyaan amniga caasimadda ee Muqdisho waxaana ugu baaqay in bulshada ay ka qayb qaataan amniga iyo sidoo kale nabadgelyada caasimadda gudoomiyaha ayaa arrintaasi qiil weyn uga dhigay in heshiis laga gaaray madmadowgii jiray ee doorashada oo dhankooda ay ku qanceen mucaaradka inkastoo banaanbaxa uu yahay mid ka dhan ah farmaajo looga soo horjeeda afgambiga 27 December ma ahan markii ugu horeyso maamulka gobolka Banaadir si cad uga hor yimaada banaanbax ay mucaaradka qorsheynayaan oo ku aadan maalinta Khamiista iyadoona 2 maalin ka hor uu gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare oo ku baaqin magaalada Muqdisho lagu qaban karin banaanbaxan fasax looga haysan maamulka gobolka Banaadir banaanbaxan ayaana sharuud looga dhigay hadiisan ogeyn maamulka gobolka Banaadir in aan lagu qaban karin gobolka isla markaana cid kasta oo ku dhaqaaqda ay tilaabo ka qaadi doonaan isagoona saraakiisha amniga iyo gudoomiyaasha gobolada magaalada Muqdisho faray gudoomiyaha gobolka Banaadir in waajibaadkooda ay gutaan mas'uuliyiinta raacsan farmaajo ayaa xilligan ku howlan baajinta dibadbaxaasi iyagoona dhawaan qabsaday banaanbax ay ku soo koobeen hotel oo la isugu keenay haween taageersanaa madaxweynaha mudxuleedkiisa dhamaada farmaajo inkastoo dadka abaabulaya banaanbaxan oo mucaaradka u badanahay hore uga hadleen hadalka Cali Yare Cali sheegeen in banaanbaxooda loo amray isla markaana wasaaradda amniga ay ka haystaan fasax taasina ay sheegeen in gobolka Banaadir aysan joojin karin banaanbaxooda Khamiista loo ballansan yahay oo mid weyn mas'uuliyiinta horkici doona banaanbaxaasi ayaana hore u sheegay in wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay fasax uga haystaan banaanbaxooda taas oo xuseen inaysan maamulka gobolka Banaadir haki karin lama oga tilaabada uu qaadi doono maamulka gobolka Banaadir hadii mucaaradka qaadaan banaanbaxaasi oo maalinta Khamiista oo mid weyn loo ballansan yahay goobaha fagaarayaasha ee daljirka dahsoon ka mid yahan lagu qaban doono wali oo magaalada Muqdisho ka socda abaabulka looga soo horjeeda afgambigii fashilmay 27 December ee lagu qaaday xafiiska Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale xarunta xukuumaddiisa banaanbax oo si weyn uga hor yimid maamulka gobolka Banaadir oo la fahansan yahay inuu gadaal ka riixayo madaxweynaha mudxuleedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ka qayb gali doona siyaasiyiin iyo xubnaha mucaaradka sidoo qorshe u yahay banaanbaxan ayaa Muqdisho ka dhici doona maalinta Khamiista waxaana looga soo horjeedaa madaxweynihii mudxuleedkiisa dhamaaday tilaabada uu qaaday isku dayay in awood ciidan uu ku qabsado xafiiska ra'iisul wasaare Rooblena taasi uu ku tilmaamay afgambi lala damacsanaa balse fashilmay banaanbaxan oo qorshihiisu soo bilowda ka hor inta heshiis aan laga gaarin doorashooyinka shirka golaha wada tashiga qaranka ayaa wali waxa uu mucaaradka ku adkeysanayaan inuu qabsoomi doono iyadoona maamulka gobolka Banaadir uu tiro dhowr jeer ka degay lama oga waxa ka dhalan doona banaanbaxaasi haddii uu dhaco inkastoo shirka golaha wada tashiga qaranka 2 maalin ka hor la soo gabangabeeyay laga soo saaray warmurtiyeed dhinacyada siyaasadda Soomaaliya beesha caalamka ay ku wada qanceen haddana waxa muuqata inuu banaanbaxaasi sababi karo xiisad hor leh oo dhinacyada mar kale ka dhex qaraxdo beesha caalamka ayaa dalab culus ka soo saartay shirka golaha wada tashiga qaranka dhinacyada siyaasadda Soomaaliya baaq u diray
saaxiibada beesha caalamka ee fadhigooda yahay magaalada Muqdisho ayaa qoraal wadajir ah soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda dalka gaar ahaan go'aanadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka ee lagu soo gabangabeeyay caasimadda dalka xubnahan ayaa soo dhaweeyay afgaradka ay gaareen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ee ku aadan doorashada saaxiibada ee Soomaaliya ee beesha caalamka waxay garwaaqsan yihiin in shirkii golaha wadatashiga qaranka ee socday 3 ilaa 9 Janaayo lagu gaaray afgarad la isku raacay ku saabsan in wax ka bedel lagu sameeyo iyo dib u habeyn habraac iyo sidoo kale daadejinta waqtiga doorashooyinka ee golaha shacabka ayaa lagu yiri qoraalka ee beesha caalamka sidoo kale beesha caalamka ayaa shaaca ka qaadin aad ugu faraxsan tahay heshiiska cusub oo ay kala saxiixdeen madaxda Soomaalida kadib la tashiyo ay sameeyeen oo dhinacyo kala duwan waxaan ku faraxsanahay in ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay qaateen go'aan ku saleysan wada tashi ay la yeesheen xubnaha bulshada rayidka ah wakiilada beesha caalamka haweenkii xubnaha mucaaradka ayaa lagu yiri mar kale war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu dalbaday in madaxda dalka ay ku ekaadaan danta guud ee qaranka ayna ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara xiisad hor leh waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya inay danta qaranka wax walba ay ka horeysiyaan ayna mudnaan siiyaan oo soo gabangabeeyaan hanaanka doorashada oo ay dadka Soomaaliyeed si weyn u aqbaleen iyo inay ka fogaadaan daandaasi ka weecin kara hanaankaasi oo kordhin kara qatartii iska hor imaadyada ama rabshado dhammaanba madaxda waa inay xaqiijiyaan in ciidamada amniga aan loo adeegsan hab siyaasadeed ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka beesha caalamka ugu dambeyntii waxay beesha caalamka hoosta ka xariiqday inay tahay in hogaamiyaasha ay dhaqan galiyaan qodobada ay soo saareen ayna degdeg u dhameystiraan doorashada waxa la joogaa waqtiga ay dhammaanba madaxda Soomaalida ay diiradda saari lahaayeen in si degdeg ah loo dhaqan galiyo go'aanadii lagu heshiiyay si loo soo gabangabeeyo hanaanka doorashada oo lagu kalsoonaan karo marka la gaaro 25 Febraayo waxa si wadajir ah qoraalkan u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Belgium Canada Denmark Masar Ethiopia Europe Jarmalka urur goboleedka IGAD Ireland Talyaaniga Japan Kenya urur goboleedka jaamacadda Carabta Norway ururka iskaashiga dalalka Islaamka Qatar Sweden Switzerland Turkiga Uganda boqortooyada midowda ee Britain dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay waxayna mar kale dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya ee madaxda maamulada iyo sidoo kale labada xafiis ee dalka ugu sareysa ay ugu baaqeen in laga shaqeeyo sidii ay Soomaaliya horey ugu sii socon lahayn oo gadaal ugu noqon lahayn doorashada dalkana la dedejiyo iyadoo khilaafka taagan wada hadal mar kale lagu dabaqayo madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo wali ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo la kala qaatay safiirada Soomaaliya ee dalalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Norway Saciid Cabdullaahi Deni ayaa la kulmay safiirka Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta kaas oo ka wada hadleen qodobo badan kulanka oo ka qabsoomay hoyga Saciid Cabdullaahi Deni ka degan yahay Muqdisho ayuu ku qaabilay safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya waxaana kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyay dalka waxay sidoo kale kaga mahad celiyay sida lagu xusay qoraalka doorka ay Imaaraadka ka qaadanayaan caawinta shacabka Soomaaliyeed oo xilligan qaarkood abaar daran ay saameeyeen Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland sidoo kale waxa uu ku booriyay safiirka Imaaraadka Carabta doorka horumarineed oo ay ka qaadanayaan Puntland Imaaraadka sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhankiisa safiirka Norway ee Soomaaliya kula kulma Muqdisho ayuu waxay ka wada hadleen xaaladaha siyaasadeed ee xilligan dalka iyo sida ay dowladda Norway uga qayb qaadan lahayd xilligan doorkeeda ku aadan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo sidoo kale gurmadka dadka abaaraha saameeyeen Axmed Madoobe ayaa kaga mahad celiyay dowladda Norway tilaabooyinkooda ay qaadayso oo ay la garab taagan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxayna ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo xilliga siyaasadda kacsan ee dalka iyo sidoo kale horumarinta arrimaha deegaanada maamulka Jubbaland inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamij wareedkeena aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamid ah inta kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo